السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كلتو عن وناكسن مالوبad ku sugateen kuna soo dhawaada barnaamijkii arrimaha Soomaaliya oo maalin walba aad ka daawataan shabakada wararka ee warqaad Tube bisha May maanta waa 13 maalinimo Axada barnaamijkan waxaanu ku soo qaadanaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya maanta qodobadaan idigu haynana waxaa ka mid noqon doona waa maxay qorshaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta safar ku aaday wadanka Qatar xilli hogaamiyaasha maamulada dalka ay ku sii qulqulayaan magaalada Baydhabo halkaas uu ka furmayo shirka maamul goboleedyada u dhaxeeya waxaa jira warar sheegaya in madaxda Puntland iyo Jubbaland ay wadaan qorshe ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya miyaas laga yaabaa in maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka Galmudug ay qorshaha ka mid noqdaan weerarka saldhigga Turkiga ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab oo la sheegayo in uu bilow u noqon doono dagaal dhexmara Turkiga iyo Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay sida ay saxaafadda caalamka weerarka uga hadashay ee daawadayaal barnaamijkan idigu soo gudbin doona madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ku sugan yahay wadanka Hindiya haddaba waa maxay qorshihiisa qodobada barnaamijka aynu ku soo qaadan doono ayaan ku soo dari doonaa waxaan kaloo daawadayaal barnaamijka aan idigu haynaa wada shaqeyn la'aan heer xun gaartay oo ka dhaxeeya madaxda maamulka gobolka Banaadir xog ku saabsan arrimaha iyo cidda ka dambaysa ayaan barnaamijka idigu soo gudbin doonaa shirka dib u eegista dastuurka oo ka furmay magaalada Muqdisho laakiin maamulka Jubbaland ayaa shirka aan ka qayb gelin waxaan kaloo daawadayaal barnaamijkan idigu soo gudbin doonaa madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland oo cadaadis saaray dadka degan deegaanadooda si aysan u taageerin dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa shaqooyinkoodii ku waayay dad ka shaqeynaya madaxtooyada labada dhinac halka sidoo kale la joojiyay kulamo la doonayay in lagu taageero dowladda oo deegaanada ka dhici lahaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal barnaamijkan idigu soo gudbin doonaa haddii eebahay noo saamaxo ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii arrimaha Soomaaliya waa hagaag daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda wadanka Qatar magaaladiisa Dooxa halkaas iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu bilaaban doona safar 2 maalin qaadanaya oo uu ku joogi doono wadanka isagoo la kulmi doona madaxda wadanka Qatar war-saxaafadeed kooban oo la soo dhigay bogga Facebook ee Villa Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafd ballaaran uu hogaaminayo ay u ambabaxeen wadanka Qatar halkaas ay ugu bilaaban doonto booqasho rasmi ah oo 2 maalin qaadanaysa socdaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee wadanka Qatar ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli xogayaha amaba agaasimaha madaxtooyada Villa Soomaaliya oo xilli hore gaaray magaalada Dooxa ee wadanka Qatar si uu halka uga qayb qaato soo dhaweynta la filayo ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loogu sameeyo wadanka Qatar madaxtooyada ama boqortooyada wadanka Qatar ayaa waxa ay diyaar garow xoogan ugu jiraan soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaas oo booqashadii labaad ee ku tagay wadanka tan markuu xilka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu xiriir wanaagsan la leeyahay dowladda wadanka Qatar isagoo oo iska indhatiraya dowladaha xulafada la ay Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Sacuudiga kuwaas oo doonayay in Soomaaliya ay xiriirka u jirto wadanka Qatar waxaana hadda ay u muuqataa xukuumadda Soomaaliya mid la safatay dhinaca wadankaasi Qatar madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku eedeeyeen inuu ka baxay ballantii ahayd dhexdhexaadnimada isla mar ahaantaana uu la saftay dhinaca wadanka Qatar taas oo shaki gelinaysa wada shaqeynta labada maamul waa wada shaqeynta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada oo u muuqda kuwa ayaguna taageersan dhinaca wadanka Imaaraadka Carabta haddaba hogaamiyaasha madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa ay ku sii qulqulayaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaas oo la filayo inuu ka qabsoomo shirweyne ee madaxda maamul goboleedyada ay yeelanayaan shirkaas ayaana la filayaa in qodobo rasmi ah ay ka soo saaraan magaalada Baydhabo waxaa la filayaa in kulan ugu furmo saacadaha soo socda madaxda maamulada Soomaaliya kuwaas oo ku midoobay golo iskaashi oo lagu soo dhisay xarunta kumeel gaarka ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Puntland oo gudoomiyaha golahan ayaa qoraal uu soo saaray 6 bishii May 6 bishii May ee sanadkan ku wargeliyay madaxda maamulada inay isugu yimaadaan kulanka bishan May 13keeda kaas oo lagu qabanayo magaalada Baydhabo
kulankan ayaa kusoo beegmayay xilli uu wuxuu yahay xiriirka u dhexeeya maamulada Soomaaliya intooda badan iyo dowladda dhexe iyada oo la filayo in ajadaha ugu sareeya wada hadalkan uu noqon doono kala aragti duwanaanshiyaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada gaar ahaan arrimaha la xiriira khilaafka u dhexeeya wadamada khaliijka iyo go'aanka dowladda. sida la soo sheegayo kulankan ayaa la filayaa inay kasoo qayb galaan madaxda maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed oo marti loo yahay Hirshabeelle, halka madaxweynaha maamulka Galmudug shaki uu ku jiro inuu tagi doono magaalada Baydhabo. madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa xiriir dhow la lahaa bilihii ugu dambeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya isagoo ballanqaadyo mashaariicda ka haysta dhinaca filla Soomaaliya. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqashadii uu ku marayay maamulka sanadkan bilowgiisii waxa uu sameeyay ballanqaadyo lagu dhisayo dekedda magaalada Hobyo iyo jidka isku xira magaalada xeebta ee Hobyo iyo xarunta gobolka ee Gaalkacyo. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo kadib markii shirkan uu iclaamiyay madaxweynaha Puntland waxay wasiirkeeda qorsheynta u dirtay xarika jaridda wadada isku xirta magaalada Hobyo iyo Gaalkacyo isagoo ballanqaad halka uu ka sameeyay wasiir Jamaalna ku sheegay in filla Soomaaliya ay bixinayso lacagta lagu dhisi doono laamiga mari doona jidkaas. dhinaca kale waxaa heer hoose maraya xiriirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii labada dhinac loolan adag uu ku dhexmaray doorashadii gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo sida la soo sheegayna laga adkaaday musharaxii uu taageersanaa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ahaa Ibraahim Yarow. wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay socdaan qorshayaal xilka la rabo in lagaga qaado madaxda maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. labada maamul ayaa xildhibaanada baarlamaanadooda iyo siyaasiyiintooda waxay ku sugan yihiin ama ay degan yihiin magaalada Muqdisho, taas oo dowladda Soomaaliya u saamixi karta in ay ku qanciyaan inay xildhibaanada ay ku qanciyaan inay xilka ka tuuraan madaxdaasi. wagaag daawadayaal sida aan wararkan aan ku soo sheegnayba waxaa khilaaf siyaasadeed xilligan uu ka dhex taagan yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland. khilaafkan ayaana curtay wixii ka dambeeyay go'aankii dowladda Soomaaliya ka qaadatay xiisada Qatar kala dhaxaysa xulafada Sacuudiga sida Imaaraadka, Masar iyo Bahrain. khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada ayaa xoogaystay kadib markii labada maamul goboleed ay qaadaceen go'aanka dowladda Soomaaliya ku qabsatay dhaqaale xoogan oo Imaaraadka Carabta ay ka soo dejiyeen magaalada Muqdisho, kaas oo ciidamada nisa ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxda labada maamul ay dadaal xoogan ugu jiraan in ay maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug ay ku qanciyaan in ay soo raacaan dhinaca wadanka Imaaraadka Carabta maadaama hadda ay u muuqdaan kuwa taageersan dowladda federaalka Soomaaliya. qorshaha hadda socda ee labada hogaamiye ayaa ah in isbahaysi uu asaaskiisa socdo lagu beeriyo hogaamiyaal kale oo ka taliya maamul goboleedyada ka jira dalka, siyaasiyiin mucaarada oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya balse ka soo horjeeda dowladda federaalka. qorshaha cusub ee hogaamiyaasha ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda wadanka Imaaraadka Carabta oo iyadu sabab u ahayd khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada hadda isbahaysanaya ee shirka ku leh magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa waxa uu ku sugnaa magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaana uu kula yeeshay madaxweynaha maamulka Cabdulle Maxamed Cali Gaas. sidoo kale waxa uu kula yeeshay madaxweynaha maamul goboleed waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaasi Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole haddana ah senator ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. markii kulanku uu soo dhamaaday ayaa Cabdiraxmaan Faroole waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton oo ay ka mid ahaayeen arinta dagaalka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland, xiisada u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale arrimo kale oo ku aadan xaaladda Soomaaliya. waxaan maanta halkan guriga igu yimi oo la kulmay ambassador Michael Keaton, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ah madaxana AMSOM missionka Soomaaliya United Nations u jooga. halka safar kooban ku yimi halka igu soo maray arrimaha uu socdayna waa ka wada hadalnay ay ku saabsanaayeen kuwa walwal siyaada ku hayay oo in meelahan dhibaatooyin ka taagan meeshaan gobolka Sool ay ka mid ahayd maamuladii Soomaaliya oo dowladda federaalka ahayd iyo dowladda xubinta ka ahayd oo iskhilaafay arrinta gobolka dhan say u saameysay arrimaha khaliijka
amniga iyo doorashooyinka soo socdaba intay noqon doonaan ama ahaatee mid goboleedka ama mid Soomaaliya guud ahaanba iyo waqtigeeda ha lahaatee hayaalahaas baan ka wada hadalnay wixii aan ra'yi ah iska wadaarsanay wixii nala ahayd walwal weyn buu ka qabay in Soomaaliya ay dagaal dambe ka cusboonaado oo ku soo noqdo oo iyadoo meel wax marayaan wax dambe ay dhacaan aad buu walwal uga qabay maantana garoow uu yimi birina wuxuu rabaa Hargeysa inuu aado dawladda meesha joogi jireen waa ahay haddana madaxda kamid ah dawladda federaalka baarlamaankeeda aqalka sare wixii fikri aan ka qabay iyo wixii waay aragnimadeeda intaan joogay oo shaqeynayay aan ka ahaa iyo wixii soo aadan wixii anigu aan ka qabayn way isku wadaarsanay wax badan bay ahaayeen hadda la kama wada sheegi karo laakiin danaha Soomaaliya bay ahaayeen dhamaan ahaan arrimaha ku saabsan muxuu ahaay nabadgelyadooda horumarka muxuu ahaay mashaariicda horumarineed dariiqada loo mari karo in dadka dib la isugu soo cesho la heshiisiyo dawlad goboleedyada ama dawladda federaalka xubinta ka iyo dawladdu hadda kala jeensaday oo kala raacay labadii qaybood oo khaliijku uu qaybsamay dawladihiisa ay raaceen waxyaalaha sababay iyo waxa keenay wax naga aadan isaga hadda beesha caalamka markan madaxna u ah siina socda dawladihii iyo hay'adihii ugu sareysay oo qaramada midoobay kulley waxa uu wadaa waa wax uu nabadgeliya cidna maanta marka xukunka haysa oo deegaankan iyo deegaanka ugu socda hadda Soomaaliland iyo xamar iyo sidii wax balkasta looga saari lahaa dhibtana anigana talo naga weydiiyay waxaan naga aadana baan u sheegnay isagaana hawsha u taala isaga qabanaya hadii ilahay intaasan maanta ka wada hadal waa hagaag daawadayaal qoraal ku taariikhaysan 26 bisha Afraad 2018 oo ka soo baxay taliska ciidamada qaranka Soomaaliya ee SNA ayaa waxaa lagu xusay in tababarka iyo maamulka xerada General Gordon oo ku taala magaalada Muqdisho lagu wareejiyay shirkad gaar ah oo laga leeyahay dalka dibadiisa xaqiiqda qoraalkan oo la helay ayaa ama laga helay saraakiil ka tirsan hay'adda amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku socda shirkad la siiyay qandaraaskan iyadoo ogeysiin la siiyay wasaaradda difaaca xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya oo ku saxan uu ku saxan yahay taliye ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood shirkadan oo la yiraahdo Red for Security Group for Somalia loona soo gaabiyo SRG oo fadhigeedu yahay magaalada London ayaa lagu sheegay qoraalkan in laga aqbalay codsigoodii ahaa maamulka iyo kor u qaadista tayada ciidamada xoogga dalka ee ku sugan xeradaas oo ahayd xeradii Imaaraadka ay ciidamada ku tababaray jireen shirkadan ayaa kamid ahayd shirkado ugu shaqeyn jiray ilaalinta maraakiibta xilliga burcabadeedka weerarada ka geysan jireen xeebaha dalka Soomaaliya kuwaas oo markaa u muuqda kuwa hore ugu soo shaqeeyay Soomaaliya wareejinta xerada Gordon ayaa wasaaradda gaashaandhigga qoy lagu dhigtay kadib markii ay soo korortay qatarta al-shabaab ee ku soo wajahan dalka in taliska ciidanka go'aansadeen in taakulayn maamulista iyo tababarka ciidanka lagu wareejiyo shirkadaas SNA ayaa ka filaysa shirkadan inay u hoggaansato dhammaan shuruudaha dalka u degsan iyada oo ciidamada qaranka u fududeynaya dukumeentiga u baahan yihiin fulinta qadaraaska sida waxaa lagu sheegay qoraalka shirkadan loogu ogolaaday maamulka xeradan taliska ciidamada qaranka ayaa sheegay in ilaalinta amniga shaqaalaha shirkadan mas'uuliyad ka saaran tahay ciidamada xoogga Soomaaliya SNA xerada Gordon ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa waxa maamuli jiray mushaar sii jiray ciidamada ku sugan dawladda waddanka Imaaraadka balse waa ay ka baxday markii uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeya filla Soomaaliya ciidamada xoogga Soomaaliya SNA ayaa hore taliska AMISOM u sheegay in tayadooda maamul aad u hooseyso isla markaana awoodi karin inay la wareegaan amniga dalka marka AMISOM ay dalka ka baxaan 2020 xerada Gordon ayaa hore ciidamadii ku sugnaa suuqa uga iibsadeen 600 oo qori kadib markii ay kala baxeen oo ay ka qaateen xerada waxaana hubka meesha uga tagay Imaaraadka Carabta shirkadan hadda lagu wareejiyay xarunta SRG oo laga leeyahay dalka Ingiriiska oo faa'iido doona ayaa la filayaa qarashka ay ku maamulayso ciidamada ku jira xeradan inay ka raadi doonto dalalka ay ugu horeyso dalka Qatar kaas oo dagaal diblomaasiyadeed kula jira waddanka Imaaraadka Carabta وهاجاك داوديال magaalada Muqdisho maanta waxaa ka furmay shirkii dib u eegista dastuurka shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka furmay mid kamid ah hoteelada Muqdisho kaas oo si gaar ah ugu kareysan dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinka kala socda maamul goboleedyada gaar ahaan wasaaradahooda dastuurka ayaa ka qayb galaya kulankan marka laga reebo maamulka Jubbaland kaas oo hore u qaaday ka qaybgalka shirkan sidoo kale waxaa la filayaa in shirka lagu casuumo
xubno ka socday xildhibaanada baarlamaanka wakiilada beesha caalamka ururada bulshada waa khubaro bulshada qeybaheeda kala duwan iyo qurbajoogta muqdisho u timid ka qaybgalka shirka Soomaaliyeed haddii aan nahay kuwa ammaanada haya iyo kuwa ammaanada loo dhiibtay waxaan rabaa inaan idiin sheego marka lafdhabarka shaqada dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo oo aan anigu ra'iisul wasaaraha ka ahay waxa ay ku fadhidaa sidii awoodda ay haystaan kuwa loo dhiibtay ammaanada oo aan anigu ka mid ahay loogu soo celin lahaa kuwa ammaanada u dhiibtay oo ah idinka meesha fadhiya sidaas daraadeed waxaan leeyahay waa inaan dhammaystirnaa dastuurka kulligeen si muwaadin kasta uu u ogaado xaqa uu leeyahay iyo waajibka lagu leeyahay waa inaan dhammaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiino doorasho qof iyo cod ah waa inaan dhammaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiinaa doorasho qof iyo cod ah taasoo macnaheedu tahay in shacabka Soomaaliyeed ay u codeeyaan cidda ay rabaan inay madax noqoto in cadda la xisaabtamayso mustaqbalka madaxda Soomaaliyeed ay tahay shacabka Soomaaliyeed si kale haddii aan u dhigno in awoodda gacanta mar kale loo soo geliyo shacabka Soomaaliyeed dastuurka waa in la dhammaystiraa si hay'adaha dowladda ay ugu kala qaaxnaato shaqooyinka ay leeyihiin oo aanay isugu khaldamin dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u oogno sarreynta sharciga dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u adkayno midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dastuurka waa in la dhammaystiraa si ay u kala caddaato awoodaha xukuumadda iyo labada aqal tusaale ahaan dastuurka waa in la dhammaystiraa si isqabqabsiga loogu bedelaa xasilooni siyaasadeed dastuurka waa in la dhammaystiraa si loo kobciyo dhaqaalaha dalka dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan dib ugu yeelno qarannimada dalkeenna una diyaarino jiilasha naga dambeeya inay naga guddoomaan Soomaaliyada ay xaq u lahaayeen waxaan halkan markaa ka caddaynayaa xukuumaddaydu waxay ku ballan qaaday inaan bixin doono $3 milyan oo loogu talagalay dastuurka waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bixin doono si loogu dhammaystiro laakiin waxaan rabaa ballanteennu inay ahaato dastuur Soomaaliyeed maskax Soomaaliyeed dhaqaale Soomaaliyeed talo Soomaaliyeed iyo midnimo Soomaaliyeed oo dib u yagleesha Soomaalida naga luntay waa maadsanta gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa qiray in maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ay ka jirto wada shaqayn la'aan u dhaxaysa gudoomiyaha ku-xigeenkiisa iyo taliyaha booliiska Mr. Tuulax ayaa sheegay in intii ay xafiiska joogeen ay waxbaha ugu badan ay arkeen uu ahaa wada shaqayn la'aan maamulka dhexdiisa taasna ay caqabad ku noqotay shacabka loo shaqayn lahaa gacyarihii hore ee madaxweynaha ayaa sheegay in si loo helo maamul degmo yimid gobol oo wada socdo loo baahan yahay in wada shaqayn rasmi ay timaado si magaalada horumarka ay gaartay mid ka ballaaran ay u sii gaarto bilicda iyo amnigana laga shaqeeyo haddaba iyadoo uu xumaanayo xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada ayaa maamulada Jubbaland iyo Puntland waxa ay bilaabeen in ay shacabka deegaanadooda ay ku caburiyaan in aysan taageerin madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda dhexe arrintan ayaa waxaa si weyn looga dareemay magaalooyinka Garowe iyo magaalada Kismaayo oo xarumo u ah labada maamul wararka waxay tilmaamayaan in shaqada laga ceeriyay xubno ka shaqeynayay xafiiska madaxtooyada ee maamulka Puntland kuwaas oo baraha bulshada gaar ahaan Facebook soo dhigay sawirro ay ku taageerayaan hanaanka nabad iyo nolol ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku shaqeyso waxaa dadka shaqada laga ceeriyay oo u badan dhalinyaro la sheegay in ay inta badan taageerayeen dowladda laakiin taageerada ay u fidiyeen dowladda darteed ayaa shaqada looga ceeriyay
sidoo kale shir ka dhacay lahaa magaalada Garowe isla mar ahaantaana lagu taageerayay dowladda federaalka Soomaaliya loogana hadlayay sidoo kalena khilaafka Imaaraadka Carabta iyo saameynta uu Soomaaliya ku yeeshay ayaa waxa lagu joojiyay amar ka soo baxay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas. arrintaas lamid ayaa ka dhacday magaalada Kismaayo kadib markii shaqaalaha xafiisyada maamulka Jubbaland lagu amray in aysan baraha bulshada aysan kula wadaagi karin dadkooda arrimo lagu taageerayo dowladda federaalka ee Soomaaliya taas oo kor u sii qaadaysa xiisadda dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada. khilaafka ka dhashay arrinta laga qaatay ama go'aanka laga qaatay khilaafka wadamada Khaliijka ayaa waxa ay si weyn uga dhex jirtaa dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada Soomaaliya. وهاجاك داوديال intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii arrimaha Soomaaliya oo qodobo dhowr aynu ku soo qaadanay waxa idin la socodsiinayay barnaamijka anigoo Cabdullaahi Axmed Nuur intaan barnaamij kala mid aynu ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.